assalaamu calaykum. marka uu qof aan xaq kuugu lahayn si kulul kuugu qayliyo waxaad si la soo boodis ah ugaga falcelinaysaa. xaggaad igaga qaylinaysaa ma lacag ayaad igu leedahay? weedhaasi badanka rabitaan la'aan iyo ku talagalaanayay inagaga soo baxdaa. haddii aynu sii fiirsannana waxa ay wadataa dhibtii uu nabigeennu ugu ducaysan jiray deenka ee uu odhan jiray allaahumma innii acuudu bika min qahri rijaal wa qalabati ddayn. ilaahayow waxaan kaa magangelayaa dayn i qarqiyo oo iga awood badiya iyo rag i muquuniya. kollayba nin deen kugu lihina wuu ku muquuninayaa. yuhuudda waddamada adduunka badankooda waayihii hore way ku dhaqnaan jireen, xataa dhulkeenna soomaaliyeed way ku dhaqnaayeen oo berbera xaafado dhan ayay ku lahaayeen. mana ay lahayn awood ciidan oo ay isku difaacaan ama cid ku muquuniyaan, waxaana ay aaminsanaayeen inay yihiin shacbullaahi almukhtaar ama shacabka ilaahay doortay, oo dadka inta kalena ay yihiin xayawaan loo sakhiray u adeegista yuhuudda, iyaguna ay yihiin shacabka ilaahay dadkiisa ka doortay iyo ilmo ilaahay, sida ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu sheegayo aynay yidhaahdeen naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'uh, annagu waxaanu nahay ubadkii ilaahay iyo kuwii uu jeclaa. taasi waxay sababtay inay isku dayaan inay ummadaha oo dhan qabsadaan oo maamulaan sida uu qofku adhigiisa u maamulo, ee dhanka uu doono ugu daaqgeeyo, subaxii marka uu doono u sii daayo, casarkii marka uu doono u soo carraabiyo, biyahana inta uu doono uu ka qadiyo. mar haddii aanay lahayn awood ciidan oo qodobkaas ugu filanna, waxa keliya ee ay ku awoodeen inay ka dhabeeyaan higsigoodaasi waxa uu noqday inay ummadaha oo dhan dhanka dhaqaalaha ka maraan oo lacagta adduunku ay iyaga jeebabka ugu dhacdo. qorshahanina maaha mid iminka iyo dhowaanahan ah, ee waa mid kumannaan sano soo jiray oo soo socday. sidaas ayay ummad kasta oo ay la noolaayeenba dhaqaalaheedii hoose gacanta ugu dhigeen, dadkeedii wax ma haysatada ahaydna dayn u siiyeen, deynkaasna ay ribo u saarteen. in deynka ribo la saartana macnaheedu waxa weeye in faqiirku uu faqri uun sii kororsado, hantiiluhuna uu hanti uun sii kororsado. yacni markaan $100 ku siiyo ee ku yidhaahdo bil iigu soo celi isagoo $10 oo dheeraada wata, mar kasta oo aad bil dib ula dhacdana 10 kale ayaa ku sii fuulaya. haddii aad sanad dib ula dhacdo macnaheedu waxa weeye inaan kaa doonayo $230. sidaas ayuu faqiirkuna faqri u sii kororsanayaa, hantiiluhuna hanti uun u sii kororsanayaa. waana sababta uu ilaahay subxaana wa tacaala inoogu tibaaxay qur-aanka falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun. waxaad leedihiin raasamaalkiinnii oo idinkuna wax ma dulmiyaysaan, idinkana laydinma dulmiyayo. haddaba yuhuuddu waxa ay ummad kasta gacanta kaga dhigeen ganacsiyadii yaryaraa ee hoose ee lama huraanka ahaa. ganacsatadii ummadahaasna way kiciyeen oo shilinba gacantooda wuu ku dhici waayey. hantidaasna laba qaabba way u adeegsadeen, oo dhan waxa ay ka siiyeen dadkii deymahaas ribada wata, dhanka kalena waxay ku laaluusheen marna ay ka deymiyeen dadka dowladaha xilalka sarsare ka haya. taasina waxay u horseedeen rabitaanka dowladahaas ka gala aan la hor joogsan, ee shaambadaha iyo saxaaxyada dowladdaasba ay iyagu sida ay doonaan ugu xaraabaystaan. haddaba haddii aynu intaas isla fahannay, aynu u nimaadno buugga Pieces of the Chessboard ee uu qoray William Gay Carey, tarjumaadiisa carabiga ee axjaar calaa ruqcati shadranj, bogga 30 oo uu ku xusayo asaasihii qoyska yuhuudda ee Rothschild ee Amshiil Mayer Bauer inuu yidhi aynu gacanta ku dhigno lacagta naqadka ee loo soo saarayo ummad innagu. intaa dabadeed muhiimad ma laha cidda qawaaniinta iyo xeerarka ummaddaas dejinaysa ee daaha dabadiisa ummaddaas ka maamulaysa. yacni marka ummad ay wax deymiyaan, shuruudaha ay deynkaas ku siinayaan waxaa ka mid ah in loo oggolaado inay aasaasaan bangiga dalkaas iyagu. cidda bangida leeyahay gacanta ku haysaana ummaddaas oo dhan ayay gacanta ku haysaa. sidaa awgeed ayuu u yidhi qodobkan. sidoo kale waayihii hore markii ay dhanna ribada dadkii kaga waaleen, dhanna laaluushka, waxay kalifteen yuhuudda Yurub oo dhan laga soo caydhiyo oo laga soo saaro gebigoodaba. isla buuggaas aynu soo xusnay ee axjaar calaa ruqcati shadranj, boggiisa 32 waxa uu ku xusayaa waxaa laga eriyey ingiriiska gebi ahaanba yuhuudda. ingiriiska oo kale ahina kuma ayakaan eryidda, ee Yurub badankeedii tallaabadaas ingiriiska ayay qaaday. faransiiska waxaa laga eriyey 1306, saksoniya waxaa laga eriyey 1348, hungari waxaa laga eriyey 1360, biljamka waxaa laga eriyey 1370, zolofakiya waxaa laga eriyey 1380, awstariya waxaa laga eriyey 1430, holand waxaa laga eriyey 1444, isbaanishka waxaa laga eriyey 1492, litwaniya waxaa laga eriyey 1495, burtuqiiska waxaa laga eriyey 1498, talyaaniga waxaa laga eriyey 1540, bavariyana waxaa laga eriyey 1551.
eriyadda heerkaas gaadhsiisan ee waxaas oo dalal ah lagaga caydhiyey waxay muujinaysaa sida ay fasahaadka iyo xumaanta ummadahaasi uga dareemeen kadibna ay u go'aansadeen inay waddamadooda ka saaraan oo ay iska caydhiyaan. qodobkaasina waxa uu muujinayaa fisqiga iyo fasahaadka ay adduunka ku hayaan yuhuuddu iyaga oo u sii maraya dhanka dhaqaalaha. sida kale buuggaasi waxa uu ku xusayaa boggiisa 35 in Karl Marxkii aasaasay fekerka shuuciga adeerkiiba uu ahaa mid ka mid ah xaaqamyada ama wadaadada yuhuudda, isaguna uu ahaa yuhuudi. halkaasna waxaynu ka dhadhansanaynaa gacanta ay ku lahaayeen fikirkii shuuciga ahaa ee aynu innagu xataa ka Soomaali ahaan qaadannay. dhanka kale isla buuggaasi waxa uu ku xusayaa boggiisa 170 in madaxweynihii Mareykanka ee Theodore Wilson uu yidhi 1916 ummadeenna wax soo saarka iyo warshadaha leh iyo ummadaha kale ee wax soo saar kale ayna la midka ahba waxaa haysata oo daaha dabadiisa ka maamusha nidaamyada kicinta dhaqaalaha ummadeed iyo deynbixinta ee riboolayaasha ah. ururada noocaasana asalkooda waxa uu laabanayaa shakhsiyaad kooban oo iyagu maamula, waana kooxda iyagu gacanta ku dhiga kobaca iyo koritaanka dhaqaalaha bulshada, waana kooxda sida dhabtaa uga arrimisa dalka. sidaa awgeed ma noqdaan xukuumadaha iyo dowladuhu xataa kuwooda ugu nidaamka iyo qaabdhismeedka wanaagsan uguna horumarsani kuwo ka tarjumaya meelmarinta aragtida iyo rabitaanka dadkii soo doortay, balse xaqiiqadu waxay tahay inay cabirayaan oo ka tarjumayaan oo u adeegayaan ra'yiga iyo aragtida kooxdaas yar ee daaha dabadiisa wax ka maamulaysa. waxaa sidoo kale uu isla buuggaasi bogga 170 ku xusayaa inuu madaxweynihii kale ee Mareykanka ee Franklin Roosevelt la wadaagayo aragtidaas madaxweynahaas Wilson ahaa, oo uu isaguna leeyahay 60 qoys oo Mareykana oo keliya ayaa iyagu si rasmi ah u maamula dhaqaalaha dalka oo 3 meelood meel ahaan shacabka Mareykanka ahi waxay la daalaadhacayaan hoy xumo, dhuuni xumo iyo dhar xumo faqri daraadii. arrimahaas aynu soo xusnay ee yuhuudda iyo sida ay adduunka cunaqabataynta dhaqaale ugu hayaanna waa kuwii sababay inuu yidhaahdo Hitler isagoo dheeganaya oo hoosta ka xariiqaya hadalkii Karl Ritter si ay u soo laabato nabaddii iyo xorriyaddii dhaqaale iyo ganacsi ee adduunku. ugu horreyn waxaa lama huraana in laga takhaluso riboolayaasha deymaha bixiye ee yuhuudda ah iyo sidoo kale dhammaanba xubnaha dhaqdhaqaaqyada kacdoon wadayaasha ah ee caalamka, waana kuwa maamula ee maareeya shuuciyadda. xogtana waxaa xusaya isla buugga aynu soo xusnay ee axjaar calaa ruqcati shadaranj boggiisa 165. isla buuggaasina waxa uu boggiisa 166aad ku sheegayaa in Benjamin Disraeli uu ku xusay buuggiisa Koningsby weer ah waxaad ogaataa inay maamulaan adduunka shakhsiyaad ka gedisan sida aynu u naqaano, kana durugsan sida ay u malaynayaan dadka moogan xaqiiqadoodu oo ay daaha dabadiisa wax ka maamulaan. sidoo kale waxa uu isla buuggaas axjaar calaa ruqcati shadaranj boggiisa 170 ku xusayaa hadal ah marka loo eego sida ay yuhuuddu dhaqaalaha ugu gumaysanayaan ee dowladaha ay deynka ku leeyihiinna ay ugu adeegayaan intaa yari riboolayaasha ah, waxay noqotay dimuqraadiyaddu erey ay u adeegsadaan hogaamiyayaashu dagniinka iyo khiyaamaynta shucuubtooda. aad ayaa ereygaas loogu dhagabarjeeyaa ummadaha raasamaaliga ah, balse waxa sidii ay doonaanba ugu galgasho ummadahaas deynbixiyayaasha iyo riboolayaasha yuhuudda ah iyaga oo ku xayiraya qiimaha hadba lacagta ummaddaasi ay joogto, oo marka ay doonaan suuqa ku soo deynaya lacag xaddi badan, marka ay doonaanna yaraynaya lacagta suuqyada soo gelaysa. dimuqraadiyadda ay Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Mareykanku ku faanayaan ee dadka ku dagayaanna macnaheeduba waa ku xidhnaanshaha ay dalalkaasi gacanta ugu jiraan deynbixiyayaasha iyo riboolayaasha. maamulkoodana waxa ay kooxdaas yari u soo maraan deymaha ay dalalkooda ku leeyihiin. dhanka kalena isla dowladaha shuuciga ahi iyaguna waxa ay isku magacaabaan inay yihiin dimuqraadi, iyaguna kama maqna saamaynta ay ku leeyihiin hogaamiyayaashaas riboolayaasha iyo deynbixiyayaasha ee yuhuudeed oo iyaguba weydiinsan yihiin. haddaba arrimahaas aynu soo xigannay oo dhammi waxay noo muujinayaan sida ay yuhuuddu u tijaabinayaan inay qabsadaan caalamka oo dhan, sababtuna waa inay isu yaqaanaan shacabka ilaahay doortay inay yihiin, dadka inta kalena ay yihiin iyaga addoomahoodii oo loo abuuray si ay iyagu u gumaystaan. sidaa awgeed ayay si walba isugu dayayaan inay qabsadaan shucuubta iyo ummadaha adduunka oo dhan. qodobkan deymuhuna waxa uu ka mid yahay barnaamijka ay dejisteen ee la odhan jiray Protocols of Elders of Zion ama carabi ahaan Protocolaat Xukama as-Sihyoon oo hore aynu muuqaal uga diyaarinay. brotokooladaasina waa waddada maanta adduunka la marsiiyo intiisa badan ee lagu fuliyo. isla buuggaas Pieces of the Chessboard tarjumaantiisa carabida ah ee axjaar calaa ruqcati shadaranjina waxa uu ku xusayaa boggiisa 174 in mar shir saxaafadeed lala yeeshay mudane Henry Ford uu yidhi waxa ugu mudan ee aan ka sheegi karo brotokooladaasi
waa in waxa ay xusayaan ee ku soo arooray iyo waxa maanta adduunka ka dhacaya ay isleeyihiin oo isku mid yihiin. markii brotokooladaasi soo baxeenna waxaa ka soo wareegay 16 sannadood, welina wadciga iyo waaqaca taagan ayaynu ka dhadhansanaynaa in wixii ku soo arooray sidaas loo fulinayo. intaas waxa uu ku darayaa qoraaga buuggaasi in Winnedasina Reford ay ka soo wareegtay 34 sannadood, yacni soo bixitaankii brotokooladaas waxaa ka soo wareegay 50 sannadood. markii ugu horreysay ee la baahiyeyna waxay ahayd 1903, iminka oo ay tahay 2020kiina waxaa ka soo wareegay 117 sannadood. haddana wixii brotokooladaas ku soo arooray ayaad moodaa in weli lagu fulinayo oo ay caalamka ka dhacayaan. haddaba waxaynu ognahay dagaal dhacay dhaqaale la'aan inaanu suuro ahayn, dhaqaale dagaal inoogu filanna badanka ma haysano ka Soomaali ahaan. sidoo kale doorasho dhacday marka iyada iyo ololaheeda iyo qalabka iyo wixii ku baxayaba la isku daro ma qarash iyo dhaqaale yaraanayso. dhaqaale waxaasoo dhan inoogu filanna badanka ma helo. haddaba waa iga su'aale, dowladaha ka dhisma koonfuri xaggee ayay ka keeneen dhaqaalaha laxaad kale ee dagaalada 30 sannadood soconayay lagu galo? dowladaha ka dhisma Somalilandna xaggee ayay ka keeneen dhaqaalahaas laxaad kale ee doorashada hal qof iyo hal codka lagu galo? wassalaamu calaykum.